gudoomiyaha banka dhexe Somaliland mudane Cali Ibrahim Jaamac ayaa saaka hortagay gudida dhaqaalaha ee golaha wakiilada ee Somaliland kulankan oo warbaahintu dabadjoog ka ahayd oo saacado badan qaatay ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay kulankii ay wada qaateen gudoomiyaha banka dhexe ee Somaliland gudoomiyaha gudida dhaqaalaha ee golaha wakiilada ee Somaliland xildhibaan Cumar Sanweyne iyo sidoo kale gudoomiyaha banka dhexe ee Somaliland mudane Cali Ibrahim Jaamac Baghdadi الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. halka saaka waxa aanu la yeelanay shir warbixina gudoomiyaha banka Somaliland mudane Cali Ibrahim oo madaxweynuhu u soo magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha banka Somaliland. halkan anaguna waxaan nahay gudidii dhaqaalaha ee golaha baarlamaanka marka qodob dastuuriga oo oranaya hay'adaha kuwa kamida iyo wasiirada in la ansixiyo oo goluhu ansixiyo ayaa dastuurku qoraya qodobkii dastuuriga baan raacinay. bismillahir rahmaanir rahiim. maanta waxaan kula kulmay halkan gudidii dhaqaalaha ee golaha wakiilada Somaliland aad iyo aad baan isu wareysanay waxyaabo badan baan isweydiinay waana dee qodob dastuuriga sida gudoomiyaha uu sheegay in gudoomiyaha banka uu marka hore soo maro gudida dhaqaalaha marka si wanaagsan baan isu wareysanay wixii su'aalaha la isweydiina waa laga jawaabay insha Allah khayr baan rajeynayaa waxaan la geyn doonaa golaha baarlamaanka waan idin mahadnaqayaa dhamaantiin.